inoo eegaysay imankana akhbaraadka dhinaca dibadda. madaxa guud ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan taakuleynta qaxootiga Falastiiniyiinta ayaa sheegay in caruurta ku nool magaalada Gaza ay halis ugu jiraan in ay qabow daran ay xilligan jiilaalka ay u dhintaan iyagoo wajahaya xaalad hoy la'aan ah iyo weliba agab la'aan. qoraal uu ku daabacay barta X ama Twitter horey loo oran jiray waxa uu xusay in aan weli ogolaanshan loo siinin gelitaanka alaabaha muhiimka ah inay galaan magaalada Gaza oo ay ka mid yihiin bustayaal iyo weliba agab kale oo lagama maarmaan u ah xilliga qabowga. waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka lana helo xabad joojin rasmi ah oo la sameeyo si loo hubiyo gargaarka dhinaca bini'aadanimada ah in uu si nabad ah u gaaro dadka ku nool magaalada Gaza iyo guud ahaan magaaladaasi, gaar ahaanna alaabaha jiilaalka ay dadka ay u baahan karaan. dhinaca kale barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ayaa waxa uu sheegay in xaaladda gaajada ee ka jirta magaalada Gaza ay sii xumaanayso iyadoo dad badan ay halis ugu jiraan in ay waayaan cunno ay cunaan. WFP waxay caddaysay ilaa iyo hadda inay keeneen 3 meelood oo meel ka mid ah cuntadii dadka Gaza ay u baahnaayeen, taas oo aan waxba ka taraynin baahida guud ee ka jirta magaalada Gaza. bayaanka lagu daawacay barta X ee hay'adda WFP ay ku baaqday in la xaqiijiyo in marino nabdoon oo la marsiin karo gargaarka in la helo iyo weliba sahayda kale ee muhiimka. WFP ayaa ku baaqday in xabad joojin degdeg ah ay tahay in la helo si dariiqyo nabdoon oo la marsiiyo gargaarka loo helo si dadka loo garab qabto. warkii habeen aad kala socoteen idaacadda Radio Kismaayo waa naga intaa. waxaa idiin soo jeedinaya anigu Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto. intaan ku kulmayno warkan lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.